بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات ميل كستو جوجتان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي يوم هذا تبارك وتعالى، والحمد لله على كل حال. حالد والبإله بأمكم هاتن تبارك وتعالى سجينة تهي إن لوغ الشكريو wixii masaa'ib ana in lagu sabro sida quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegeen. waxaan jeclahay inaan idinku baraarujiyo waqti walba iyo xaalad walba waxay leedahay xadadkeeda ay leedahay. maanta arrimaha ka taagan meelo badan oo kamid ah dalka Soomaaliya iyo deegaamo kale, gaar ahaan masaa'ibtan fatahaadaha oo runtii ay u daran tahay magaalada Beledweyne iyo Hiiraan. waxaad moodaa waxay mudnayd iyo siday mudnayd in aan ilaa hadda loogu tilaabsanin waajibkii inaga saarnaa ilaahay hadda inaan la qaadanin. الله تبارك وتعالى قرآن الكريم كوحينا وشيء مؤمنين تو إني ولا ليهين رسولكنا صلى الله عليه وآله وسلم أرنت وصيفة فهي ولا لماذا سوحي كان إني إسكت شريهين شركنا إصلاح حنون صدا دي حنون يماده إصلاح سوتشيده إصلاح فرحه مؤمنين تو نسيدا سوكلو الله تبارك وتعالى ولا لماذا markuu sheegay nabiguna ku fasiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam. arintaasi marka waa musiibo runtii caam ah oo dhacday, keentay barakac, dhimasho keentay, laga yaabo inay cudurro ka dilaacaan dad badan iyo ummado fara badan deegaankii iyo guryahoodii ay ka barakaceen, qaar lala yahay. sidaas oo kale markay fatahaaduhu u dhacaan xataa waxaa ka dambeyn kara halis cudur iyo khataro badan baa ka dambeyn kara. arintaasi waa waajib sharci ah inaynu runtii loo gurmado sidii horeyba aan u sameyn jirnay ummadda Soomaaliyeed. runtii abaaraha iyo fatahaadaha iyo masaa'ibta caamka ah waxaynu leenahay mowqif mid ah oo aynu ku ammaananahay, diinteenuna amartay oo asal u tahay, damiirka iyo walaalnimada inaga dhaxaysana runtii ay keenayso. mas-uuliyadda marka in la qaato oo sidii loogu gurman jiray masaa'ibtii dalka ka dhici jirtay, fatahaadii hadday tahay, abaarihii dalka soo maray, dhibaatooyinkii, qaraxyadii, musiibadan guud markay timaado inaynaan ka sugin caalam dibadda inuu yimaado, hay-ada dibadda inay soo gurmadaan. innaga marka hore wixii aan kari karno inaynu dadka walaalaheena la gaadhno, inagu isu danqanno. sidaasaana caadi inoo ahaan jirtay, waana ku ammaananahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoy joogto. dadka marka qurbaha jira, dibadaha jira, wadankan hadda aan joogo Kenya, ganacsatada iyo dadka jooga Soomaaliya magaalooyinkeeda iyo miyigeedaba dadka jira, insha allahu tacaala ha loo soo gurmado ummadaas dhibaatadu gaadhay. walaalaheena insha allahu tacaala loo soo gurmado sidii laynagu yaqaanay iyo si ka fiican insha allahu tacaala loo soo gurmado. hana loo tacaawuno, ha laysu kaashado insha allah in la badbaadiyo ummadda wixii la badbaadin karo. xataa haddii guryahoodii dib ugu noqdaan saalix ma aha, guryihii oo biyo galeen oo daad galay dib in loo hagaajiyo, qaar badan waa burbureen. shaki ma laha meeshaasi culays badan baa yaala, taklifo fara badanna waa u baahan tahay. dadka badbaadintooda u horeeya, kadibna wixii uun badbaada dib u dejin bay u baahan doonaan, raashin bay hadda u baahan yihiin, daawooyin iyo caafimaad bay u baahan yihiin. culays badan baa halkaa yaala. andimada xataa ka dhisan wadanka, ama dowladda federaalka ha noqoto, ama dowlad goboleedyada ha noqoto, ama ganacsadada guud ahaanba ha noqoto, runtii waajib iyo mas-uuliyad weyn baa inaga saaran dadkaas in loo gurmado. marka insha allahu tacaala ha la dhaqaaqo, ha la iswacyi geliyo, kulamo iyo shirar ha la qabto. dadka si degdega in wax loola gaari karo insha Allah taala la isku dayo
ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan u weydiisanaynaa inuu musiibada ummadda ka dulqaado, intii dhimatay ilaahay u naxariisto, inta dhaawaca ilaahay tabaaraka wa tacaala u caafiyo, inta barakacday ilaahay baradoodii oo nabad qabtay inuu dib ugu celiyo, inagana ilaahayna waafajiyo mas-uuliyadda inaynu qaadanno oo arrintaa xilka inaga saaran ilaahayna fahansiiyo, hana inoo fududeeyo. baaqaasi waxaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto. waad mahadsantihiin. jazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.